ilaahay baa mahad iskale maanta inaan ku suganahay degmadii ugu facaweyneyd hargeysaba ka facaweyneyd ee Salaxley oo runtii maanta aan soo indhaynay mahad gaar ah waxa iskale golaha deegaanka iyo maayirkooda hogaaminaya oo hadda aan ku suganahay garoonkii mustaqbalka dhalinyarada balwadaha ay kaga reysanayeen oo la bilaabay oo labankiisii haatan xagga dambe yaalo runtii magaaladan waxay ugu dambeysay 2017 ololihii doorashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ina soo dhaafay tan ka horeysay kabac weyn ayaan ku arkay runtii magaalada Salaxley iskuulkii secondary-ga ahaa primary schoolkii oo shaqeynaya oo dhalinyaradii ay ka diyaar garoobayso master plan-kii magaalada oo la sameeyo qorshe aad u ballaaran oo runtii qurux badan uu jiro riigagii biyaha oo daleedka magaalada yaala haddana roomo maalin laguma dhisin qabyooyin fara badan baa magaalada u yaala oo kabka dhaqaale iyo waxa gudaha ka soo baxayaaba runtii iska yariyo dhaqdhaqaaq fara badan oo dhaqaale uusan jirin waxa ay magaaladu runtii u baahan tahay jaamacad ayaan daro weyn weeyaan degmadan oo runtii ahay degmooyinka ugu facaweynaa in 3 sano ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay aanay maanta jaamacad lahayn oo dhalinyaradaasi ay u dareerayaan jaamacade dalka ku yaala intiisa kale dayactiro sidoo kale fara badan looga baahan yahay adeega bulshada ee asaasiga ah oo runtii ka culus inta golaha deegaanka Salaxley taala haday tay international community iyo hay'adaha madaxa bannaan ee kabka dhaqaale qarankeena u geysta iyo haday tay dawladda dhexe oo iyaduna waxa weeye miisaaniyadda kabka qaranka intii kaga soo hagaagta degmada iyo deegaankaba ay waajib tahay mahad gaar ah uga diraya dadka deegaanka wixii ay qabsadeen oo ay iyagu isku ceshadeen oo runtii dan guud oo fara badan ay dhiseen ururada sida gaaroodi haweenka qurba joogta iyo dadka deegaankuba arinta quraatay aan dhaliilay waxa weeye qurba joogta dhulka iska qaadanaysa ee afarta dhagax koonaa ka dhigaysa arintaasi in ay joogsi u baahan tahay qorshe ballaaranna aynu ka leenahay in aynu waxa weeye aasaasno oo aan dhagax dhigno village qof waliba apartmentkiisa labadii qol iyo suuligiisii uu ka leeyahay qurba joogta inay iyaguna maal gashadaan village hidiye dhaqankeedii wadata goobihii sportiska wata waxa weeye dhulkan quruxda badan leh cimilada leh deegaan kale ay u imanayaan inay waxa weeye ku soo dalxiisaan caruurtoodii qurba joogta keenaan dadka waxa weeye runtii vitamin D-ga iyo cadceedda qurbaha u baahan inay iskaga soo nastaan ay ku nastaan oo biyahoodii iyo leydhkoodii iyo asaaskoodii taasoo qorshe weyn oo abaabula master plan-ka golaha deegaanka laftooduna ay dhulkii u diyaarinayaan oo waxa weeye danguuda in ay village-ka la maal gashado oo abaarmano yaryar ah gudaha magaalada Salaxley waxaan filayaa dhul fara badan in diyaar leydin lahaa haday tay qurba joogta iyo ganacsatada waxa sidoo kale halkan dhaliil uga diraya ganacsatada deegaanka ka soo jeeda oo haday tay arbeekooyinka maalgashiga dabaqyada ganacsiga intaba iyagana loo baahan yahay inay deegaanka dib u soo eegaan oo abaabul ballaaran ay ka galaan arinta dawladdu runtii way iska cusubtay dawladda maanta jirta dawladihiina soo dhaafayna nin waliba taagtiinna tabartii wixii tagay tigsimaad male laakiin dawladda maanta joogta waxaan filayaa miisaaniyaddii hore qaranka bay ku shaqeynaysaa sida golaha deegaanku la socdaan wixii sanadkan ka dambeeya ba degmada iyo deegaankuba ay ku xisaabtami doonaan baahiyaadkooda inay soo gudbiyaan haday tay jaamacadda haday tay waxa weeye miisaaniyadda loogu daro garoonkan wadi doono oo aynu la kaashan doono waxa weeye ganacsato qurba joog iyo waxa weeye iyo dawladda dawlad hoose iyo dawlad dhexe tii hoose waaba tan wado oo runtii seeska inta leeg iyo deerka inta leeg iyo labanka imika mala gacantu loo baahan yahay in lagu dhaqaajiyo iyagoo ku adeegaya dhammaan qalabkii dawladda hoose oo waxa sidoo kale iyaduna qiimo leh oo aan halkan uga mahad celinaya inay daarimi damdamiskaba diyaarsadeen oo iyaduna magaalada ka diyaara oo iyadana u baahan in loogu daro degmada inta laga ballaaran ee intaasoo degmooyin ay hoos imanayaan tuulooyin in waxa weeye gubashada iyo dabka ka baxaya deegaanka iyo beecadda iyo hantida ummadaba iyadana aynu rajaynayno in waxa weeye hawlaha lala dhaqaajiyo dawladda hoose qurba joog ganacsato dawlad iyo shicibba waxaynu rabnaa guud ahaan qaranka iyo degmadaba inaynu isla kaashano waana uga mahad celinaya dhamaan golaha deegaanka maayirku horkacayo
iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee iyaguna qayb ka geystay. mahad gaarana waxaan u dirayaa ururadii qurba joogta ahaa ee cusbitaalada iyo iskuullada iyo danta guud qaybta weyn ka qaatay. farkaliina fool ma dhaqday dadkii deegaanku hadday wada noqoto iyo hadday cusbitaal noqoto inteedii way qabteen. xukuumaddan cusubna waxaynu ka rajaynaynaa isbeddelka dalku inuu ka muuqdo deegaankan oo ummadani waxa weeye ku abtirsato deegaan ahaanna ay tahay de magaalooyinkii iyo degmooyinkii ugu faca weynaa ayaan rajaynayaa. anigu kaliibaan ahaanna runtii dee habeen iyo maalinba waxaan taagnaanaya salaxlay sidii ay uga qabsoomi lahayd. arrinta ugu weyn dal iyo dibad baan ugu baaqayaana waa garoonkan sidii loo kicin lahaa si ciyaalku maaragtay balwadda iyo amuuraha ay uga joogsadaan. aad iyo aadna waa mahadsantihiin.